wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland mudane Salabaan Cali Kore gudoomiyaha baananka Soomaaliland maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco iyo waliba maareeyaha iyo maareeye ku-xigeenka wakaaladda biyaha Burco ayaa si wada jir ah xadhiga uga jaray mashaariic horumarineed oo lagu soo kordhiyay wakaaladda biyaha Burco ugu horeyna waxa mashaariicdani ka warbixiyay maareeyaha wakaaladda biyaha Burco Cabdixakiin Maxamed Maxamuud waxa yaala qalab kala duwan oo bangigu wakaaladda hore ugu mariyay inuu lacag ka sii bixiyay lacagtaas oo aanu iska jarro maalin walba qayb oo bishii afraad noo socoto oo 12 biloodna ku jaan go'an lacagta waxaan soo siisanay qalabka arkaysaan oo ka kooban 1963 xabo beeba oo isugu jira 8 ilaa 1 inch saddex mashiin oo waaweyn oo kuwa halka ku arkaysaana oo saddexda mishiinka koowaad weey 350 kFA 150 kFA iyo 60 kFA waxa kale oo yeenaan halka noo yaala saddex bam oo kala ah bamka 22 motoriska 18.5 iyo laba midho 18 haday tahay ilbiyadii haday tahay air valveski waxa kale oo halka noo yaala cagaftaas aragtaan oo nagu tala galay inaanu biyaha magaalada anagu cag farona lahayn inaanu biyaha magaalada wixii dhiman ku qabtiro saddex qol oo anagu tala galay farsamada waxa kale oo iyaguna saaka xariga nooga jari doontaan ceel biyood ay wakaaladu fulisay hore u dayacnaayo intuu muddo 4 sano ka hor dumay dib habayn ku sameeyno saaka isaguna noo diyaar mudan wasiir waxa weeye ceel sideedaad baa la yiraahdaa waxa ahaa ceel biyaha Burco ceelasha ugu macaan mid kamid ah wuxuuna qodnaa 160 mitir ceelkaasi nasiib darro naga dumay maanta waxaan halkan u joognaa inaynu dhagax dhigno ceel cusub inaynu ka qodno oo ay isla kaashanayaan hay'adda World Vision iyo wakaaladda biyaha maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco gudoomiyaha baananka Soomaaliland iyo waliba wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ayaa iyaguna uga mahadnaqay mashaariicdani horumarineed iyagoona sheegay inay dadaalayaan maamulka wakaaladda biyaha Burco waxaan kale u mahad celinayaa maareeyaha wakaaladda biyaha iyo maareey ku-xigeenka iyo shaqaalaha weynaha ee wakaaladda biyaha runtii u dhabaradaygay firfircooni dheeriya iyo horumar badan oo la taaban karo runtii ku soo kordhiyay wakaaladda wasiirku waa shaqeynaya aad buu shaqeynaya xeelal badan iyo dadaal badan buu keenay isagana waan mahadnaqaynaa dhalinyaradan wakaaladda shaqadoodii bay ka soo bixeen qofku markuu shaqadiisa ka soo baxana waa congratulation baa leeyahay wallahi hambaliya maareeyaha oo ah nin vision leh runtii oo vision weyn leh iyo maareeya ku-xigeenka iyo shaqaalaha wakaaladda oo aan isleeyahay la'aantood isleeyahay hawshani ma dhacdeen visionka gudoomiyaha baanka iyo anigaba noola yimid maaha arrintan halka u joogno tan oo kaliya maaha mashaariic fara badan bay wakaaladdu dhaqaajinaysaa marka maalintii hore nin maareeyaha baa resignation ka soo dhiibay ninka maareeyihii wax weyn buu qabtay baa lalahaa waa laga baqayay inay wakaaladdu dib u noqoto oo maareeyihii hore loo darsado laakiin maanta waxaanu markhaati ka nahay inay hore uga socotay sidoo kale wafdidan ayaa soo kormeeray ceelal cusub kuwaasi oo lagu soo kordhiyay ceelashii hore uga shaqaynayay degmada Burco kacban ciyaar ku dabaashan hadda danbaan mood jiray maadaama oo haraadnayo nolosha koobaadna waa biyaha aad iyo aad baan idin mahadinayna gudoomiyaha aad baan ugu mahadinayna wasiirka biyaha maareeyaha ilaahay mahad iyo saad baan u sanilaahay anagoo fulinayna amaawiirta madaxweynaha iyo amaawiirta xisbiga labadaba waxaanu ku khasbanahay dadka danyarta inaanu gaarsiino biyaha dadka noocan oo kale ah waxaan loogu talagalay inaan wax lacag laga qaadin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida wajiyadooda farxaddu uga muuqato dadka biyuhu soo gaareen ayaan le Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco.